wafdi ka kooban madaxda Afrika ayaa soo gaaray dalka Gambia waxaana hogaaminaya madaxweynaha Liberia Ellen Johnson waxaana isku dayeen inay ku qanciyaan madaxweynaha Gambia Yahya Jammeh inuu xilka isaga tago madaxweynaha dalka Gambia Yahya Jammeh ayaa sheegay markii hore in laga guuleystay halka markii dambe uu sheegay inaan laga guuleysan doorashadii ka dhacday dalkiisa laakiin wafdigan ayaa isku dayay inay ku qanciyaan inuu isaga tago xilka oo la shaqeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay Adam Barrow booliska ayaa xiray xafiisyada guddiga doorashada ee madaxa bannaan ee dalka Gambia EAC magacooda loo soo gaabiyo ka hor inta ay yimaadeen wafdiga gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa bannaan ee dalka Gambia ayaa sheegay in la aqbalo guusha uu gaaray Adam Barrow doorashadii madaxtinimada dalkaasi ka dhacday beesha caalamka ayaa fursad ku tilmaamtay booqashada wafdiga madaxda Afrika waxaana ay sheegeen in ay noqon doonto mid laga miro dhaliyo isla markaana Yahya Jammeh uu aqbalo doorashadii ka dhacday dalkaasi wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha Liberia Ellen Johnson ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari iyo madaxweynaha Sierra Leone iyo wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee Afrika wafdigan ayaa waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha xilku ka dhamaanayo ee Yahya Jammeh waxay sidoo kale la kulmi doonaan madaxweynaha cusub ee dalkaasi Adam Barrow